بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحامهات أردن إسكال الله سبحانه وتعالى ونوسو دمية هوله الدورشة هيرر كيدي كردونا. وحان ربا إن آن وقمه هاد عليو شعب كسومالي ميل والبا أي جوغان سيدي أي نوغرب استاغين دعادي يدولقات كي أي موجيان انتي أي سعودتي هوشي دورشة دالك أو إيهي مد آد ودي بدنيت ولا ليال. waxaan maanta mar kale hortiina u imid inaan idinla wadaago fariin si gaar ah u qusayso shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Walaalayaal 9ka bisha June oo ku beegan bari oo Khamiis ah caasimadda waxa ay martigelin doontaa madaxweynayaal, ra'iisul wasaareyaal iyo mas'uuliyiin sarsare iyo wufuud caalami ah oo kala duwan oo ka imaanaya dhammaan daafaha kala duwan ee caalamka kuwaas oo ka qayb galaya caleemasaarka madaxweynaha dalka mudane Xasan Sheikh Maxamuud. haddaba si loo xoojiyo amniga martida heerkeeda sareeya ee dalka imaanaya waxa laga maarmaan noqotay in la xiro jidadka caasimadda lana hakiyo isu socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa dadweynaha laga bilaabo caawa 10 fiidnimo ilaa berri galab 5 galabnimo hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo. sidaa darteed waxaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan Muqdisho si xushmad iyo qadarin leh uga codsanayaa in ay noo dulqaataan muddadaas kooban ee magaalada xirnaan doonta ayna ciidamada ammaanku garab ku siiyaan sugidda amniga magaalada Muqdisho. ciidamada amniga iyagoo waajibaadkooda gudanaya waxa la farayaa in ay shacabka u turaan oo ay tixgeliyaan xaaladda caafimaad ee degdega ah. sidoo kale taliska ciidamada booliiska waxa la farayaa in ay diyaariyaan gaadiidka gurmadka degdega ah si ay goobaha caafimaadka u geeyaan dadka ay la soo darsaan xaaladaha caafimaad ee aad u daran. mar kale waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dulqaadkiina iyo insha Allah Ilaahina subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu caleemasaarkaas noogu dhameeyo si nabadgelyo ah waana